بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد marka hore mudane madaxweyne maanta ay bisha Maaris tahay 2013 waxa taariikhdu ka marakacaysa mashaariic dawguuda oo xaafadda Axmed Dhagax uu ogolaatay bishii Juun 2012 mashaariicdaas waxay isugu jirtay sariibado 3 nooc tii caanaha tii khudradda iyo tii hilibka waxa kale oo kamid ah MCH oo caafimaad ahaan loogu adeego gaar ahaan carruurta iyo haweenka waxa kale oo iyana raacaya saldhig biliis oo adeegii nabadgelyo wax badan inuu ka taro haddii aan la yiraahdo inuu ku tala jiro imaka laba guryaha muuqda ku ka dambeeya waxay ahayd halkii madaxtooyada iyo laga soo duulay wargii la qarxiyay madaxtooyada halkii laga soo duulay madaxtooyadii UNDP iyo safaaradii Ethiopianka saldhig la'aan iyo wax la'aan baa caawiyay waxaanu filaynaa inay markaas saldhigaan isku adeegii nabadgelyo wax badan ka tar wadadkuna uu heli meel wixii khatar uu ka dareemo haddii aan la yiraahdo uu soo gudbiyo waxa mashaariicda kamid ah iskuul waxbarasho haddii aan la yiraahdo oo cidii soo gaari kartaaba ay ka faa'iideyso waxa kale oo ku jira masaajid ummaddu ay ku cibaadaysato intaasoo dhan oo kombaleksyadaas wixii dadaha imanay hadday sariibadaatay hadday cibaadada iyo masaajidka tay haddii public latrines kala gooniya oo dumarkuna qayb yeelan doonaan ragguna qayb yeelan doonaan ayaa iyaguna wehelin doonaan mashaariicdaas midna madaxweyne waa wada danguud sidaad ku bixisay waa danguud sida loo fulin doonaana waa danguud wax gaar ah oo cid gaar yeelan doonta haddii aan la yidhaha ma jiro waxa raacaa ciidanka halkan degan oo runtii waaxid ay aad ugu mahadnaqayso in xarun cusub iyagana loo dhisay oo hay'adda intaasoo mashruuc hay'adda khayriga ah mashruuca fulinaysa mashaariicda fulinaysa ay ballan qaaday inay ciidankana dib u dejiso iyagana xeradooda uga dhisto dhismayaal haddii aan la yidhaha la isla gartay annaga taliyihii iyo kulli aan ka wada hadlay la iska gartarin iyagana loo dhiso mashaariicda mudane madaxweyne intaasay ka kooban tahay waxa loo adeegsan doonaa waa dantaa guud waaxda wax badan baa la filayaa inay u tarto gaadiidka iyo saxmadda dawladda ee magaalada ee kolayga dhaadhacaya iyo adeegga fog ee loo tegayo wax badan oo kala dejina ayaanu filaynaa inay ka tarto oo magaalada saxmaddeeduna haddii aan la yidhaha ay wax badan hoos uga dhacaan marka mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaynaa dhagax dhigga waa kaaga mahadnaqaynaa waaxdu guud ahaanna waa kuu og tahay taariikhduna waa kuu qori doontaa insha allahu kelmaddii aad oran lahayd baan kugu soo dhaweynayaa kusoo dhaweynaya بسم الله الرحمن الرحيم aad baan ugu faraxsanahay inaan mashruucan maanta halkan dhagax dhigo sidaa uu wasiirku sharxay waa mid bulshada iyo deegaanka wax weyn ka tari doonta waa in bulshada qaranka u kordhin doonta waa wax weyn oo bulshada iyo deegaanka iyo mid walba horumar keeni karta ummadda u keenta waa waxa dawladdu u dhisan tahay waa in bulshada wax loo qabto waa in deegaanka hore loo mariyo waa in ummadda danaheeda iyo baahiyeeda bar walba qiimaynta weyn iyo mudnaanta la siiyo weey marka waxaan inagoo daan qaran ka shaqeynaa inaynu ciidankana wixiisa u samayno bulshadana horumarinteeda iyo waxeeda iyo danaheedana aynu tixgelinteeda siino marka farxad weyn bay tahay inaan maanta dhagax dhigo mashruuca شيخ عبد الناصر وكوكيل هيئة الهدى سيصمم مشروع فلوسه وهيئة الاستمساج المحتوية هي مساجد بدن وكلهم تيستي ولا بارلمان كلها وكيلها دستي دروين عيدك المساجد ولا دستي كل عيدك كدستي هدي الله يرام عيدك حرم laga dhisayna masaajid bays uu helinayo guriyihii iyo xafiisyada masaajid iyo shaqadii intaaba waa ka rabnaa hadii aan la yiraahdo marka aad iyo aad baan iyadana ugu mahadsantahay.